halkani waa Somali Radio warbaahin dhexdhexaad ah oo idiin soo tabinaysa wararka iyo dhacdooyinka geeska Afrika Muqdisho Hargeysa Djibouti Jigjiga iyo Garissa somali.radio.net saddex nin oo ku labisan dareeska ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya dadka deegaankuna ay ku sheegeen inay ka tirsanaayeen ciidamada dawladda ku meel gaarka ee maamulka degmada Dharkeenley ayaa maanta kooxo la sheegay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab waxay ku toogteen xaafadda Kaxda oo ka mid ah degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho sida dadku deegaanku ay xaqiijiyeen ayaa waxa jiray in ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya isku dayeen in dhacbaasan ay u geystaan gaar noociisu ah hoomiyo dad ay saarnaayeen kaasoo ka yimid xaafadda Kaxda degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho deetana ay jidka u galeen ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya kadib dhacbaasan ay u geysteen dadkii deegaanka gaar ahaan kuwii baawarka saarnaa marka dhac loo geystay waxay qeylanaan u muujiyeen ciidamo ka tirsan xarakada al-shabaab oo ku sugan deegaanka Tireedisho ay diris yihiin xaafadda Kaxda degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho durbadii waxa dhacday in ciidamadii ka tirsanaa xarakada al-shabaab ay u soo gurmadeen dadkii deegaankaas markaana goobta ay ku toogteen saddexdii askari oo ka tirsanaa ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya sida idaacadda Somali Radio uu xaqiijiyay mid ka mid ah dadka deegaanka maasantay abaarkooy toonkii barqanimo ee saakay ayaa ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ku meel gaarka Soomaaliya waxa ay dhacbaasan u geysteen gaari Roomi oo ka soo kiciyay dhanka ay deegaan weynaha ka xad ee dawladda magaalada Muqdisho kuna sii jeeday dhanka iyo dabakaymadow iyadoo taay keentay inay qaataan guud ahaan agabkii saarnaa gaarigaasi halka gaariga lagu dhacay oo ahayd afaafka hore isbitaal weynaha Kaxda ayaa waxa arkay markii gaariga la dhacay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaanka Kaxda iyadoo taa ay sababtay inay dadkii gaariga oo la dhacay arkay u qeylo doontaan dhanka iyo Tireedisho ciidamada ku sugan ee shabaabka waxayna taas sababtay in halkaasi ay ciidamo gurmadaad fara badan oo shabaab ay soo gaaraan halkii ay gaariga lagu haystay iskoorimaad dhowr daqiiqo halkaasi ka socdayna uu sababay inay halkaasi ku ruq baxaan saddexdii askar ay ku labisnay dareeska ciidamada dawladda ee dhaca u geysanay gaariga qoryahoodina ay hore u qaateen sidoo kale waxa uu sheegay in aysan jirin wax khasaare oo soo gaaray dadkii rayidka dhacay u geysteen ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya balse ciidamada xarakada al-shabaab ay saddexda askari toogtay ay ursi qaateen saddex qoryo AK47 ah oo askartan ay wateen may haweeraatay wax khasaare oo soo gaaray dad rayid ma jirin taa oo keentay sababta keentay in dad sayid aan khasaare la soo gaarin waxa loo aaneyn karaa iyadoo ay iskoorimaadku bilowday mar ay sii baxayeen dadkii ku labisnaa dareeska dawladda ee dhaca geysanayay oo agabkoodii hore u qaatay juwaano ku xabsaday iyadoo dalcadii dheereed ee ku dhaweyd isbitaal weynaha Kaxda ka sii daadagay rasaasta hal mar oo dhowr jeer kala timid si kastaba arrintu ahaatee waa markii ugu horeysay xaafadda Kaxda degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho lagu toogto saddex askari oo ka tirsan ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ayna dilaan xarakada al-shabaab Ibrahim Gudle Isxaaq Somali Radio Muqdisho London, Minneapolis, Stockholm, Dubai, Nairobi. La socod saacad walba Somali Radio.